siyaasadda Cabdilaahi Xamdulle oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Soomaaliland sida weyn u difaaca qarannimada ayaa ka hadlay heshiiskii Somaliland iyo Itoobiya ku dhex maray dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa. Heshiiskaas ayuu ku tilmaamay mid dhaxalgala waxaana uu soo saaray qoraal uu kaga hadlay arrinta. Qoraalkaas oo u dhigan sidan: madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland isagoo ay panelka wada fadhiyaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu cadeeyay madaxweyne kasta wuxuu uu ku fekeraa danaha dadkiisa iyo dalkiisa rabitaankooda iyo baahidooda. Sidaa awgeed baahida annaga noogu weyn ee dalkaygu u baahan yahay waa aqoonsi caalami ah oo ay helaan. Itoobiyana baahideeda ugu weyn waa saldhig badeed oo ay helaan. Labada baahiyood ayaanu isfahan ka yeelanay oo aanu dhaafsanaynaa maanta. Itoobiya sidaas la mid ah ayay qowl iyo ficilba u cadeysay in fahanka dhex maray Somaliland ay aqoonsi iyo saldhig ciidan oo Itoobiya laga kireeyo iyo qodobo kale oo ganacsi wax isweydaarsi ah labada dal dhex maray. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu xisbigiisa dhexdiisa uu ka sheegay baarlamaanka uu ka dhex sheegay meelo kale oo dhowrana ka sheegay isaga iyo wasiiradiisu ay kaga dhawaaqeen in danaha Somaliland ay ka leeyihiin iyo danaha ay Somaliland ka leedahay labaduba ay yihiin wax isdhaaf. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed isna wuxuu si aan leexleexad lahayn u cadeeyay inaanay Itoobiya u diidanayn bad ay hesho balse ay diidan yihiin halka ay soo mareen haddii ay iyaga soo mari lahaayeen mid iyo lababa ay siin doonaan. Madaxweynaha Jabuuti iyo la taliyihiisu waxa ay iyana sheegeen inaanu madaxweyne Muuse wax kala eegin wadankiisa uu eegay isla markaasna uu mindi dhabarka ka geliyay. La taliyuhu wuxuu sii raaciyay waxay ahayd inuu Ismaaciil Cumar Geelle wax u sheego. Sidoo kale waxa uu siyaasiyiin Cabdilaahi Xamdulle inta raaciyay qoraalkiisa sii wata. Gudoomiyaha UCID Faysal Cali Waraabe isna waxa uu sheegay si aan gabasho lahayn u bayaamiyay fahamka Itoobiya ina dhex maray inuu yahay dhaxal wixii aynu 30 sano uu xambaarsan yahay oo waa in la taageeraa isfahamkaas ayuu isna yiri Faysal Cali Waraabe. Gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan statementigiisu wuxuu uu gundhig uga dhigay Muuse waxa ay ahayd in taanu ku dhaqaaqin saxeexa inuu la tashado madaxweynaha dawladda Jabuuti ee aynu walaalaha nahay. Haddaba aragtiyaha kor ku xusan ee dhammaantood ku saabsan fikirka laga bixiyay fahamkii dhex maray Somaliland iyo Itoobiya haddii aynu si isugu dhow u dhigno labada fikir ee kala ah kow waxay ahayd in annagana laga tashado oo nala soo maro nala weydiisto in naloo sheego mid sidaas micne ahaan ku arooreysa waana aragtida jecel in la noqdo oo ay wax isbedelaan had iyo jeer. Fikirka labaad waxay ku arooreysaa nin waliba isaga baahidiisa ka tashada oo go'aankeeda leh iyada oo cidi uma soo goyso wadada la marayana waa tii saxda ahayd. Aragtiyahaynuna waa sida kolka ay sidaa tahay adigu muwaadin ahaan teebay kula tahay inay danta dalkaaga iyo dantaadu ku jirto. Fikirka saxda ah ee ay tahay inay Somaliland taageertaa waa in wadankeenu waxa dani ugu jirto aynu taageerno. Kolka ay sidaa tahay muwaadin baladba ayuu ku soo afxiray siyaasiyiin Cabdilaahi Xamdulle qoraalkiisa. abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalaas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay. ku bixi ku iibso ku kaydso Dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada. ku mahadsantahay inaad ka mid tahay daawadayaasha Xogreeb TV. ka mid noqo kumanaanka qof ee ku taxan Facebook-geena Xogreeb. follow soo dheh oo nagu soo biir sidoo kalena ha ilaawin share tayo kuma kuwa noo mihin daawade waad ku mahadsantahay sida aad noogu xidhan tahay.